daawadayaal mar kale ku soo dhawaada wararka warbixinada iyo wareysyada runta news channel oo aad si joogto ah ugala socotaan Soomaaliya iyo Seattle Washington ee carigaasi Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Cabdisiciid Muuse Cali oo ay weheliyaan wasiirada gaashaandhigga mudane Xasan Xuseen Xaaji iyo amniga mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo booliska ayaa furay shir lagu howlgelinayay guddiga hogaaminaya qorshe ay Soomaaliya kula wareegayso amniga dalka. wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Cabdisiciid Muuse Cali oo khudbad ka jeediyay furitaanka munaasabadda ayaa guddiga kula dardaarmay mas'uuliyadooda qaran isaga oo u tilmaamay muhiimadda ay u leedahay Soomaaliya shaqada guddiga laga sugayo iyo qorshayaasha horyaala. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo shirkan maanta aan ku furayno la wareegidda amniga qaranka guddigii si istiraatiiji u hagi lahaa ama ka imow hay-adaha dowladda federaalka ama hay-adaha dowlad goboleedka. waxaan ku dhawaaqnay guddigan haddaad soo xasuusataan sanadkii hore madaxweynaha hal mar buu wuxuu isugu yeeray prime ministerka ra'iisul wasaaraha isagoo maaragtay bil una jira xukuumadduna markaas cusub tahay baa waxa la isugu yeeray hay-adaha amniga qaranka ee heer dowlad federaal. markaasaa go-aankii halkaas lagu qaatay in STP steering committee-ga la sameeyo. marka ballanqaadkeennii ahaa inaan fulinta la wareegidda amniga Soomaaliya iyo dhiiranaanteenna ah inaan waddankeena annaga dib ula wareegno waxa weeyaan meeshan ka hagi lahayn weyn. waxay ku tusaysaa ahmiyadda ay leedahay in wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga gudaha taliyaha xoogga taliyaha booliiska iyo idinkoo dhan oo ka socda hay-adaha dalka ugu muhiimsan inaan halkan isugu nimaano waxay ku tusaysaa yacni not only rabitaan laakiin inaan rabno inaan waxaan ka dhabayno. waxaa muddadii uu shirkani socday iyaguna dhankooda ka hadlay wasiirka gaashaandhigga mudane Xasan Xuseen Xaaji iyo wasiirka amniga qaranka mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur oo labaduba waxaad la socotaan dalkeena in ciidamo ajnabi ay joogeen muddo ka badan 14 sano 14 sano gudahooda dowladooyina isbedelay. waxaan samaysanay ciidamo qaran oo iskugu jira militariga booliska nabad sugidda usluub. waxaan leenahay ciidamo aada u firfircoon oo la tababaray oo aan ku faani karno. marka waxaan leeyahay yaraysanina aqoon badan ay idinku jirta. waxaaway khubaro badan baad kaashin doontaan caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedba idinka warsuga. labadan maalin waxaa la rabaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshiyaalkii Soomaaliya hore u sameysay STP1kii midkii review lagu sameeyay concept of operationadii fara badan oo aad diyaariseen iyo qorshe oo guud oo caalamka aan u diri karno aan leenahay Soomaaliya option-kana qaadatay haana nagu taagano yaan idinka sugaynaa. waxaan wada ogsoonahay waxaa la soo maray process aada u dheer oo ku aadan amnigeena ama doodaha amniga ee dalka Soomaaliya wuxuu soo maray maraaxil kala duwan oo aada u waqti dheer qaadatay. haddaan dib ugu laabano waxaa jirtay mar laga hadlayay in la keeno ciidamada dalka oo loo doodayay oo aan u campaign gareynaynay oo aan codsanayna in loo keeno ciidamada. sida wasiirku sheegay Cabdisiciid waxay ahayd 14 sano ka hor caruurtii dhalatay xilligaas maanta way qaan gaareen almost. waxaan aad ugu faraxsanahay runtii teamkii technicalka ahaa ee ka shaqeynaya shaqadan oo runtii meelo badan aan ka amaano haddana aan ku celinayo. gaar ahaan aan aada u jeclaystay inkastoo ay wada dadaalayeen saraakiishii dhalinyarada ahayd ee ka socotay ciidanka xoogga dalka aan runtii aada u bogaadinayo. taliye waad ku mahadsantahay waxaa soo saartay saraakiil waxgal ah
wasiirkan waxaan ku idhi maraan kulan kala qayb galo waxaan ku idhi maanan filaynin saraakiil sidaas u dhisan inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed matalaan sidaas lamid ah ciidanka booliska iyo saraakiishii sare kale ka socotay hay'adaha kala duwan gaar ahaan kuwa amniga mar labaad mar saddexaad waa idin bogaadinaynaa maadaama hore la idin soo tijaabiyey waxaan ku qabnaa kalsooni buuxda inaad hawsha la idin xil saaray oo runtii mugga iyo miisaaniyadda iyo macnaha aadka u ballaaran u leh qarankeena Soomaaliyeed inaad kari karaysaan inaad dib u habeyn ku sameysaan dib u ogis ku sameysaan fulinteedina aad ku dhaqaaqdaan waad ku mahadsantihiin daawashadiina fadlan ku dhufa like dhammaan baraheena runta news channel ee YouTube Facebook iyo Instagram hana ilaabin inaad saaxiibadaada la wadaagto una share gareyso wararka xaqiiqada ku dhisan